maadaysi khataro awood xidigeed xifaaltan ilaa iyo isbeddello xamaasadeed hal ama laba ka mid ah astaamahan ayaa kulan ciyaareed kasta la gola yimaada balse finalkii 2008 ee Champions League kulligood ayuu kulansaday kuwa oo dhamaantood ku iba furtay bartamaha Moscow ee baraf ku hareeyay balse kulankaasi waa uu ka kululaa wax kasta oo kubadda cagtu ay soo aragtay sanadkaasi waxa uu ahaa isku dhac ay ku kulmeen ciyaartoyda ugu waaweyn dunida kaasoo ay ku dhex jireen sheekooyin xamaasad leh oo ciyaartani ay muddo diyaarinaysay taageerayaashu waxay filayeen qalalaase falanqeeyaashu waxay saadaalinayeen dagaal ciyaartoyduna waxay isu diyaarinayeen dagaal dhaba ha yeeshee kulankani xitaa waxa uu ka sarreeyay dhammaan filashooyinkaasi sare isaga oo noqday mid taariikhda galay oo weligiis ay xasuusan doonaan taageerayaasha kubadda cagta dunida markii la xaqiijiyay in Manchester United iyo Chelsea ay yihiin labada kooxood ee finalka 2008 Champions League isla markiiba xiisadu cirka ayay isku shareertay tani waxay ahayd finalkii ugu horeeyay ee laba kooxood oo Ingiriisi ay ku kulmaan tartankan kuwanina waxay ahaayeen laba ka mid ah kooxaha ugu xifaaltanka adag ee gudaha Ingiriiska qarniga 21aad Manchester United hore ay ugu guuleysteen koobkan laba jeer balse tani waxay ahayd finalkii ugu horeeyay ee Champions League oo ay gaartay Chelsea balse kooxda reer London uma muuqan koox cusub waxay u ciyaarayeen si kalsooni leh iyaga oo muujiyay heerkan in ay mudan yihiin markasta oo aad fiiriso garoonka waxaa joogay magacyo waaweyn iyo xidiga caan ah dhinac waxaa joogay Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez iyo Paul Scholes waa dhinaca guduudan dhinaca kalena waxaa joogay Frankie Lampard, Didier Drogba, Michael Black iyo Claudio Makelele waa dhinaca buluuga kulankani waxa uu soo jiitay dhammaan taageerayaasha kubadda cagta ee dunida buluug iyo casaan ayay ahayd balse dhamaadka hameenkan mid ayaa magaalada ku dabaaldegi lahaa kan kalena murugo ayuu la hoyan lahaa Sir Alex Ferguson waxa uu doortay qaab ciyaareedkiisa caanka ah ee 4-4-2 halka tababarihii Chelsea ee xilligaasi Abraham Grant uu isaguna adeegsaday shaxda loo yaqaan 4-3-3 Mikel Essien ayaa laga ciyaarsiiyay garabka midig ee daafaca isaga oo booskaasi uusan ahayn kiisa caadiga ah waxa uu qaatay mas'uuliyad culus oo ahayd inuu hawada ka xidho Cristiano Ronaldo ma ku guuleystay mise kuma guuleysan sheekadan ayaad ku ogaan doontaa daqiiqadii ugu horeeyay kulanka waxa uu ku bilowmay si xamaasad leh 5 daqiiqo gudahood Owen Hargreaves ayaa isku dayay inuu meel fog ka tijaabiyo goolhaya Peter Cech balse goolhayahani waa uu feejignaa oo kubadda waa uu qabtay daqiiqada kadibna Hargreaves waxa uu mar kale ku hor istaagay Cristiano Ronaldo kubad madaxa oo muuqatay inay ku socoto xidiga reer Portugal Ronaldo kuma farxin arrintaasi balse si degdeg ah ayuu u iloobay wuxuuna ku dhawaaday inuu gool ka caawiyo wax yar kadib daqiiqadii 16aad Ronaldo waxa uu farsamo cajiib ku soo dhaafay Mikel Essien dhinaca bidix waxaana uu soo dhigay kubad cajiib oo ku soo riday xerada kooxda kubadda cagta Chelsea balse kubaddaasi waa ay ka sare martay Owen Hargreaves bilowga ciyaarta Manchester United ayaa si cad u maamulinaysay iyadoo ahayd kooxda kaliya ee u muuqatay inay gool dhalin karto balse daqiiqadii 23aad Chelsea ayaa ku sigatay inay hoggaanka ciyaarta qabato inkastoo uu ahaa ciyaaryahan Manchester United oo ku dhawaaday inuu gool iska dhaliyo Frankie Lampard ayaa kubad u soo dhigay Didier Drogba balse Vidic ayaa kubaddaasi dhexda u galay waxa uu ku sigtay inuu kubadda ku leexiyo shabaqiisa iyadoo Van der Sarna uu ku soo baxay kubadda taasi waxay noqon lahayd musiibo balse United waa ay ka badbaaday kadibna kooxda Red Devils waxay biloobeen weeraro xooggan daqiiqadii 26aad Paul Scholes ayaa la arkayay oo laba ciyaaryahan oo Chelsea la aaday dhinaca geeska garoonka isla markaana waxa uu baas wadto ku dhufsaday xidigii la oran jiray West Brom taasoo suurtagelisay in daafacu uu kubad cajiib ku soo rido xerada ganaxa ee Chelsea mar kale Cristiano Ronaldo ayaa ka sare maray Essien isaga oo si sare u booday isla markaana ku dhaliyay madax cajiib oo shabaqa ku hubsaday xitaa Peter Cech oo ku jiray xilligiisa ugu wanaagsan waxba kama qaban karin madaxaasi quman waa uu istaagay isaga oo daawanaya kubadda cajiibka ah ee shabaqiisa ku hoobanaysa waxay ahayd finalkiisii ugu horeeyay ee Champions League Cristiano Ronaldo waxa uu qabsaday ciwaanada warbaahinta daqiiqadii hore ee ciyaarta Ballon d'Or waxa uu ekaa mid magaciisa lagu sii qorayay xilli horeba balse waxay sacidina ogeyn inay soo socoto dhacdo kale oo ku lug yeelan doono taasoo kooxdiisa rajadeeda khatar gelin doonta inta ka hartay qaybtii hore ee ciyaarta Ronaldo waxa uu sii watay bandhigiisa heerka sare ah isaga oo muujinaya sababta loogu aqoonsaday ciyaaryahanka ugu fiican dunida ha yeeshee Chelsea ma aysan aqbalin cadaadiskaasi oo kaliya balse goolka laga dhaliyay waxay go'aansadeen inay ka soo laabtaan oo ay weerar degdeg sameeyaan daqiiqadii 27aad Michael Black ayaa isku dayay darba meel ka baxsan diilinta ganaaxa balse kubaddu xitaa ma aysan walwalgelin goolhaya Van der Sar fursadda xigta ee uu ku helana waxay noqon lahayd mid madax xanuun dhaba ku noqota goolhayaha reer Holland daqiiqadii 33aad Frankie Lampard ayaa mar kale soo bandhigay kubad halis ah oo uu ku soo riday xerada kooxda kubadda cagta Manchester United balse waxay gaartay bartilmaameedkeedii oo Didier Drogba waryahanka reer Ivory Coast ayaa kubadda madax ku celiyay
isla markaana ku riday aaga khatarta ah ee xerada kooxda Manchester United. Michael Ballackna waxa uu ku dhawaaday inuu si tartiib ah uga dhex bixiyo kubaddaasi Van der Sar, balse goolhayuhu wuu istaagay oo gacanta ayuu kubaddaasi ku tuuray. Paul Scholes ayaa isaguna si degdeg kubadda isaga saaray. Taasina waxay ahayd fursadii ugu dhaweyd ee Chelsea ay gool ku dhalin karto ilaa waqtigaasi, balse wax yar kadib waxay sameyn doonaan mid ka sii halis badan. Balse marka hore waa inay ka badbaadaan weerarka rogaal celiska ee halista ah oo ka imaanaya Manchester United. Daqiiqadii 34 Wayne Rooney ayaa kubad dheer u tuuray Cristiano Ronaldo, kaasoo si qurux badan u dajiyay kadibna si degdeg ugu soo riday xerada ganaaxa ee Chelsea. Carlos Tevez ayaa ku dhuftay madax quusa, balse goolhaya Peter Cech waa uu badbaadiyay. John Terry oo isku dayay kubadda inuu iska saaro, balse kubaddii waxay u tagtay Michael Carrick oo taagnaa cirifka diilinta ganaaxa. Xidiga qadka dhexena waxa uu toogtay goolka, balse mar kale Peter Cech ayaa ka joojiyay. ninkan maskarada xiran waxa uu muujiyay sababta loogu tiriyo goolhayaasha ugu fiican dunida. xaqiiqdina xilligaasi isaga oo kaliya ay ciyaarta ku hayay Chelsea. daqiiqado yar kadibna waxa loo maleynayay in loo baahan yahay badbaadin kale oo ka timaata Cech, balse Tevez ma uusan gaarin kubad cajiib ah oo Wayne Rooney uu soo dhigay. ugu dambeyntiina weerarka Chelsea ayaa ka dhigay dadaalkii Peter Cech mid qiimo leh. 3 daqiiqo ka hor dhamaadkii qaybtii hore, Rio Ferdinand ayaa qalad ku galay Frankie Lampard meel u dhow diilinta ganaaxa. garsooruhuna si cad ayuu u arkay, wuxuuna siiyay Chelsea laad xor ah. Black ayaa kubadda qaastay, balse kubaddaasi waxay dul martay birta goolka. xilligaasi qof walba waxa uu filayay in Manchester United ay qaybta nasashada gali doonto iyadoo hogaaminaysa ciyaarta, balse Chelsea waxay hayeen xeelad kale. kubadan xooganayn oo Michael Essien uu ka soo laaday meel fog u qadka dhexa ah ayuu ku toogtay dhinaca goolka, inkastoo kubaddaasi ay u muuqatay mid sahlan. ha yeeshee kubaddu waxay ku dhacday Vidic kadibna Ferdinand, waxayna u tagtay Frankie Lampard oo soo ordayay, kaas oo si degan shabaqa ugu hubsaday. Chelsea si mucjiso ah ayay u soo barbarayeen ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay qaybtii hore ciyaarta. inkastoo inta badan ciyaarta ay ku jireen cadaadis, goolkani waxa uu bedelay gabi ahaanba muuqaalkii kulanka. markii la gelayay qaybta nasashadana Manchester United waa ay niyad jabeen, halka Chelsea ay dhirinaan heleen. labada kooxoodii waxay ku soo laabteen qaybtii labaad iyagoo oo leh hal ujeedo oo isku mid ah, waa inay ciyaarta soo afjaraan sida ugu dhaqsiyaha badan. Ronaldo gaar ahaan waxa uu ekaa nin hawlgal diyaar u ah. daqiiqadii 55 Michael Essien ayaa hogaamiyay weerar gool celis oo ay Chelsea soo qaaday. kubaddu si cajiib ah jir ahaan isaga xiray Ronaldo iyo ciyaaryahano kale oo Manchester United ah, isla markaana uu si goysmo cajiib ah isaga farsameeyay Cristiano Ronaldo iyo ciyaaryahan kale oo Manchester United ah. ha yeeshee kubaddu nasiib darro waxay kaga soo aadantay lugtiisa aan xooganayn. waxa uu fiiriyay inuu helo saaxiibkiisa u baaso, haddana waxa uu arkay inuusan haysan fursad kale, sidaa daraadeed wuxuu go'aansaday inuu ku laado lugtiisa aan xooganayn, balse nasiib darro kubaddaasi waxay dul martay birta goolka. 2 daqiiqo kadibna Frankie Lampard ayaa kubaddu dusiyay Ashley Cole oo dhinaca bidix ordaya. daafacuna si dhaqsiyo leh ayuu kubadda ugu soo dhigay xidiga la yiraahdo Didier Drogba, balse Vidic oo feejigan ayaa kubaddaasi badbaadiyay. daqiiqadii 58 Michael Ballack ayaa mar kale isku dayay darba meel foga, balse aad ayay uga fogaatay bartilmaameedka. daqiiqadii 78 Didier Drogba ayaa kubad ka laaday meel 25 yaardi u jirta goolka, waliba kubad qalloocsan. kubaddaasina waxay dhaaftay Van der Sar goolhayaha Manchester United, balse birta ayaa badbaadisay. taasi waxay ahayd fursadii ugu dhaweyd ee qaybta labaad lagu go'aamin kara ciyaarta. daqiiqada kadibna Didier Drogba mar kale ayuu ku sigtay inuu gaaro goolka Manchester United, isagoo oo gaaray kubad loo soo dhigay, balse cadaadiska adag ee Vidic ayaa ka hor istaagtay. ciyaartu waxay noqotay sheeko laba qaybood leh. qaybtii hore Manchester United ayaa si buuxda u maamulinaysay, halka qaybta labaadna ku dhawaad gabi ahaanba ay maamulinaysay Chelsea. waxaan u leeyahay ku dhawaad maxaa yeelay Manchester United waxay ku sigteen inay guusha xadaan 10 daqiiqo ugu dambeeyay. daqiiqadii 82 Carlos Tevez ayaa isku dayay darba meel fog ah, balse kubaddaasi waxay noqotay bartilmaameed aan sax ahayn. markaan ma jirin mucjiso daqiiqadaha ugu dambeeya sida finalkii ka horeeyay ee Manchester United 1999 sida daraadeedna ciyaartu waxay gashay waqti dheeriya. taageerayaasha dhexdhexaadka ahi dhib kuma aysan qabin, maxaa yeelay ciyaartu waxay ahayd mid aad u xiiso badan, mana jirin cid dareemaysay waqtiga dheeriga. inta badan marka kulan weyni uu galo waqtiga dheeriga, kooxuhu waxay noqdaan kuwa taxadar badan si aysan daqiiqado kooban ugu lumin koobka. balse labadan kooxood ma aysan rabin inay guuldarro ka fogaadaan ee waxay rabeen inay guulaystaan. nacaybka iyo xifaaltanka labadoodana waxa uu keenay weerar degdeg ah. 4 daqiiqo gudahood waqtiga dheeriga, Frankie Lampard ayaa ku dhawaaday inuu Chelsea hogaanka u dhiibo. waxa uu kubad ka helay Ballack gudaha diilinta ganaaxa. kubaddii ayuu la jeestay oo si xoog ugu toogtay goolka kooxda Manchester United, balse Van der Sar kubaddaasi waxba uu ka qaban waayay, birta ayaana ka badbaadisay. markaasi si dhab ayay u muuqatay in ay ahayd hameenka nasiibka ee Manchester United. xaqiiqdina ma ahayn markii ugu dambeysay ee ay birtu badbaadin doonto. Manchester United waxay isku dayeen inay ka faa'iideystaan nasiibkaasi, waxayna qaadeen weerar rogaal celis oo degdeg ah. daqiiqadii 100
Ryan Giggs ayaa kubad ka helay goolka hortiisa oo toogtay balse John Terry ayaa kubaddaasi madax kaga soo saaray iyada oo sii galaysa waxaana uu badbaadiyay riyada kooxdiisa markii waqtiga dheeriga ahay uu ku dhawaa dhamaad arrintii ugu walida badnayd ayaa dhacday ciyaartooy badan ayaa dhulka fariistay waayo waxa ay doonayeen in murqaha loo dugduugo daal awgiis sida daraadeedna Chelsea ayaa kubadda dibadda u saartay si ay gargaar caafimaad u helaan sida caadiga ahna fair play-ga ama ciyaar wanaagga marka laga hadlayo Manchester United waa inay kubadda dib ugu celiyaan Chelsea marka kubadda iyaga la siiyo si ay kubadda u soo bilaabaan balse Carlos Tevez ayaa isku dayay inuu xeeladeeyo arrinta markii kubadda loo soo celiyay waxa uu kubadda si ula kaca ugu tuuray dhinaca goolka Chelsea oo dhinaca ay ka baxdaa waxaana uu ku amray saaxiibadiisa in Chelsea kubadda marka ay tuurato ay cadaadis saaraan si ay gool ugu xadaan ciyaartoyda Chelsea arrintaasi way ka caroodeen waxayna u arkayeen anshaxumo John Terry iyo Black ayaa ugu horeeyay oo arrintaasi ka falceliyay kadibna ciyaartoy kale ayaa ku soo biiray ciyaartoyda Unitedna waa ay soo ordeen si ay u difaacaan Tevez taasina waxay keentay buuq iyo isriix ka dhexdhacay ciyaartoyda Didier Drogba oo markii hore u yimid inuu xaaladda dejiyo si aysan u sii xumaan ayaa si fudud loo kiciyay dareenkiisa garsooruhu ma uusan arkaynin dhacdada balse garsoore ku-xigeenka ayaa arkay Drogba oo Vidic wajiga ka dharbaaxaya waxaana uu isla markiiba u sheegay garsooraha Drogbana waxaa la siiyay kaarka roosada isagoo noqday ciyaaryahankii labaad ee finalka tartanka Champions League roosa la siiyo kadib lehmaankii kooxda Arsenal ee 2006 kaarkaasi cas waxa uu ahaa dharbaaxa weyn oo ku dhacday Chelsea inkastoo waqtiga dheeriga uu ku dhawaa dhamaad Drogba waxa uu ahaa mid kamid ah tuurayaasha rigoorada ee ugu muhiimsan Chelsea mana ka qayb gali doona rigoorooyinka marka ciyaarta ay gaarto gool kulaadka dabcan waad ogaan doontaa sida ay taasi muhiim u tahay Carlos Tevez ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee rigooro tuurta waxaana uu Peter Cech u diray dhinac khaldan Black ayaa isaguna u jawaabay oo Chelsea u dhaliyay goolka barbaraha waliba si qurux badan Michael Carrick ayaa xigay isaguna meel khaldan ayuu u diray gool hayaha Giuliano Belletti oo isagana loo soo galiyay si gaar ah inuu rigooro tuurto ayaa isaguna dhaliyay waxayna noqotay inaan qofna seegi doonin kadibna xidigii xilli ciyaareedka Cristiano Ronaldo ayaa soo istaagay qof walba waxa uu arkayay gool damaanad qaad leh markii uu kubadda soo qaatay dhunkaday oo si dabacsan u dhigtay balse xaqiiqadu waa ay ka duwan tahay orodkiisii joogsiga lahaa ma jahwareerin Peter Cech goolhayahan waxa uu indhaha ku hayay kubadda waxaana uu sameeyay badbaadin cajiib ah waa rigooradii ugu horeysay ee la qasaariyo qofna ma filaynin in rigoorada ugu horeysa ee la qasaarin doona ay ka imaan doonto Ronaldo markii Lampard uu si degan u dhaliyay rigooradiisina Chelsea ayaa hogaamisay gool kulaadka waxay u muuqatay in Ronaldo uu baabi'iyay rajadii Manchester United ee koobkeeda saddexaad iyo Ballon d'Orkiisii ugu horeeyay Owen Hargreaves, Ashley Cole iyo Nani saddexduba rigoorooyinkii xigay waa ay dhaliyeen taasoo ka dhigtay in wax walba ay ku soo ururaan rigoorada ugu dambaysa ee Chelsea haddii ay dhaliyaan iyaga ayaa noqonaya horyaalka Yurub caadiyan Drogba ayaa qaadan lahaa rigoorada go'aaminaysa balse maadaama la saaray oo roosa qaatay Captain John Terry ayaa go'aansaday inuu qaato dabcan waa daafac dhexe laakiin haddana waa uu garanayaa sida rigoorada loo laato habeenkaasi qabow ee Moscow ayaa saameeyay Captain John Terryna waa uu simbiriraxday isla markii uu kubadda laadayay inkastoo goolhayaha uu dhinac qaldan u diray haddana kubaddaasi markii saddexaad birta ayaa badbaadisay Manchester United markii ay u muuqatay rajadu inay dhamaatay Manchester United waa ay soo laabatay haddana qalad uu galaa qof walba waxay noqon doontaa midda ugu daran Anderson, Salman Kalou iyo Ryan Giggs si sax ah ayay u dhaliyeen saddexdii rigooro ee xigtay kadibna waxaa yimid Nicolas Anelka weeraryahan khibrad leh oo xitaa hore u soo qaaday Champions League dabcan lama heli karin ciyaaryahan ka fiican oo rigooradaasi qaadan lahaa si uu koobka u go'aamiyo balse culayska rajada London ayaa saarnaa Anelkana kubaddii waxa uu si toos ah ugu gacan geliyay goolhaye Edwin van der Sar si rasmi ah ayaana sidaas loogu caleemo saaray Manchester United horyaalnimada Yurub markii saddexaad John Terry iyo Didier Drogba ragga buluuga ahi waxay ku dhawaadeen inay dhintaan ma aysan rumaysan karin inay fursadaasi lumiyaan iyadoo Chelsea ay qaadi kartay koobkeedii ugu horeeyay ee Yurub dhinaca kale Cristiano Ronaldo ma rumaysan karin inuu ku sigtay inuu kooxda dhaafiyo xilli taariikhi ah nasiib wanaag isaga xidigaha kale ayaa badbaadiyay inkastoo uu sheegay rigooro weyn haddana waxaa loo doortay ciyaaryahanka ugu fiican ee taageerayaasha iyo xidiga ugu fiican dunida 2008 in ka badan 10 sano kadibna ninkaasi waxa uu la kulmay challenge kala duwan oo Champions League Cristiano Ronaldo waa uu bislaaday isaga oo ka falceliyay kicin taageerayaal ciyaartooy iyo xitaa tababarayaal ka soo horjeeday